السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي سلام يا مركورة مان والله سوماليات هل كان يقدر ورايا ميل والباه واتشوكتان يسوع البودي مغلسان باه وادي سلام يا حدوني هنا مقال كان مانتي بلان كذا ورموه حالها قدام بيه قبل كجدو يوحي الشلي كدعي حالك يا مرحبا يبين ترى بدن ولا شيء يوحيها ماشى كدعي خاصة الدراسة الشلي دعي يحالة هذا قدام بيساعد دمد دولو يورك كتاجن أيام الدنيا مركينا بالكوبو إنتي عن كجارو ومعقولة يو حيالها نسلا هاي ولا قبل شيء يعني عقار كم إذا أنقول أبطو مركوبه الرئيسة بانتي الشرع هايت أيا ديار الله صاف دوبي مقالة كسمايو وأحمد مدوبي كحديث وإسوا في دوبين أيا سيحوغا وغسو دقتي دقمدا دولو waxaa diyaarada saarnaa dad lagu sheegay marka ay xildhibaano iyo wasiirro yihiin iyo dad kale loo soo magacaabay xilal kala duwan oo la yiri gobolka mad ka shaqeyn doontaan diyaarad noocay ahayd ayaa markaa degmada doolo ka soo degatay garoonka degmada doolo maalmihii ugu dambeeyay runtii wuu cakirnaa dowladda xamar xasan sheekh maxamuud oo hogaamiyo ayaana ku soo rogtay sida ayagu ay sheegeen in markaasi aysan cidna ka soo degi karin maadaama maamulka degmadu ay noqdeen kuwa ayaga markaa aan ka amar qaadanin oo sidee warka u dhigeen marka garoonku wuxuu ahaa mid la isku hayay maalmihii la soo dhaafay xasan sheekh maxamuud wuxuu doonayay garoonku noqdo garoon asaga amarkiisa ku shaqeeya cid uu rabo ka soo dejiyo marka maamulka meesha ka jiray iyo dowladda Itoobiya ciidamadu meesha ay ka joogeen ayaa arrinta ka hor yimaaday sidaan xogaa ku hayo markii arkeen markaa in ragga ay shalay doolo ka soo degeen ayaa ciidan abaabulan oo xasan sheekh maxamuud uu abaabulay kana amar qaatay gobolka qaar badan oo ka mid ah markaa jooga gudaha magaalada doolowna joogay ayaa duulaan ku qaaday magaaladii ay joogeen naftirkeedii iyo garoonkii laga soo degayba kadibna halka waxaa ka dhacay dagaal ay ummad badan oo shacab ah oo reer doolow ah qaarna khasaare ka soo gaareen qaarna ay ka qaxeen dagaalkii markii ugu dambeeyay waxaa ku soo biiray ciidamadii Itoobiyaanka meesha joogay ciidankii magaca dowladda huwana ee xasan markaa uu abaabulayna markii ugu dambeysay magaalada xoog baa looga saaray qaarna waa laga laayay maxaa la yiraahdaa ilaa iyo dhowr iyo 10 iyo 20 inta u dhaxayso oo ciidan ahna waxay gacanta u galeen oo qabtay ciidamada Itoobiyaanka ah xooga ku jooga dalka Soomaaliya qayb badan oo kamid ah qaasatan gobolka Gado marka 10 ilaa 20 dad ugu qiyaasay ay Itoobiyaanku wali ay gacanta ku hayaan dadka laga qabtay ciidanka waxa kamid ah nimankii saldhigga booliiska degmada doolo ka shaqeynayay waliba raggii oobiga qorayay ama faylka dacwadaha localka markaa dadkii qorayay ayaa kamid ahaa waxa kamid ahaa laba nin oo kala duwan oo oobi qorayaalka ahaa degmada doolo ayaa wali xiran ciidamo kale ninka ugu horeeyay magaciisa waxa la yiraahdaa Aamin Xasan Deer abis xildhibaan buu ahaan jiray ninka wali waa xiran yahay xuna aragii ka shaqeynayay oobiga saldhigga doolo waxa kaloo xiran nin kale asaguna magaciisa la yiraahdo Nadiir Cabdiraxmaan asna waa xiran yahay labada nin ayaan ka gartay raggii listigooda la soo gudbiyay laakiin ilaa iyo dhowr iyo 10 qof oo kala duwan oo ciidanka ah xiran arrinta marka la yaab ka noqotay ayaa waxay tahay xasan sheekh maxamuud kii nimankan dhalinyarada ciidanka soo abaabulay dowladnimada aan la aqoon xasan halka ay ka shaqeynayso qaabka u shaqeynayso cid garan kartaan aysan jirin madaxa ugu shubay ilaa ay hadda kama uusan hadal la xiran yihiin dadka socda xasan sheekh maxamuud baa Itoobiyaanka qaarna Itoobiya kula shiraya marna telefoonno kula hadlaya shalay xataa waraaqa ay ku dhaliilayaan bay soo saareen ilaa ay hadda ciidanka cid ka hadashay xirtaankooda ma ay jirto waxa dab lagu shubay way dantii laga lahaa walaga gaar xasan sheekh maxamuud wasii maalmihi la soo dhaafay umada u sheegay in Itoobiya uu la heshiiyay badda Soomaaliya la heshiis aan la aqoon lagu siiyay wasii yiri Itoobiya waxa aqoonsaday inay yihiin naftood hurayaal Soomaaliya badbaadinaya haddana isla Itoobiyaankii ayaa ciidankii magaca dowladda watay shalay gacanta mariyay heshiiskii wixii uu sheegayna lama yaqaan halka ay jiraan waxa ay noqon doonaan qofka marka doonaya inuu xasan fahmo aragtidiisa iyo siyaasadiisa inta uu baa oo filan حسن وانك إثيوبيان كبدو سي
haddana isla ayagii ay xabadda ku garaacayaan arkaysaa haddana marna eedeynahaya marna baryahaya marna qoraallo cusub la soo saaray waxaan arkay maantay heshiis hor leh oo Itoobiyaanka ay la gaareen oo ay ka mid tahay in la dedejiyo shirkii Ankara wixii ka soo baxay asaga baryo tam Itoobiyaanka raba waxaan oran karaa marka Xasan inuu dal iyo dawladnimo ka shaqeeyo iska daayay Xasan Soomaaliya gacanta wuxuu u gelin doonaa Itoobiya walaad kan doonta si looga soo bixiyo talaabada Itoobiyaanku ay shaqo qaadeen oo ahayd inay ciidamada Soomaaliyeed inta u kala heliyaan qaar ka mid ah ay buudka kula tuntaan ama ay maxaa la yiraahdaa laayaan waxaan arkay inay ihaano ku tahay magaca Soomaaliyeed iyo magaca qaranka iyo ciidanka Soomaaliyeed waxaan arkay anigu qadiyadaha Soomaalida gudaheeda ka dhaxaysa ciidanka shalaad inta isdagaalaan ama qola ka mid ah magaalada gacanta ku hartay qadiyad Soomaali gudaheeda oo laga xali kara ayta dagaal qabiil ama dagaal siyaasadeed oo Soomaali gudaheeda magaca kale ayaan bixin lahayn waxa naga inaga dhaxay waa internal labada wiil ee Soomaaliga ah haday xabad soo garaacaan waa sida wiilashadii kid inta wiilka niyo laakiin waxaan garan karinin waxa Itoobiya kaga jira garoonka doolow iyo waxa laga dhax qabanayo waarta ma garanay waan musiibo aan la aqoonin goorta laga bixin doono runtii dhanka kale aw dadkii reer gadaha ahay wax galka ahaa miina wax gal lahayn imise sanad ag fadhiyaysan Maxamuud Said Aadan baa la soo diray Fartaag baa la soo diray Hebel Shibir baa la soo diray how many years baan ku jiraa ku jiraysa miina dad wax garta lahayn miina ugaasiyo inaba doona lahayn miina dad hadli kara oo wax diidi karaya waxaan ka arkay degmada Garbaharey nina odayaal ah ilaahay khayr ha siiyo oo si adag arrinta uga hadlay cid kale oo ka hadashay wili maar iska diiday ma yeelayno dushada lagu dagaalamayo ay yiraahdeen wixii ay ka degayeen way waxa damaanta shalan dolo ka dhacay way saantii way shirkan jaraa'id waxaan uga hadlaynaa haddaanu nahay beesha sade gobolka Gada waxa lagu soo xawilay oo dhibaatada ah waxaan doonaynaa sade uma baahno waxa la yiri ilmo dhunkasho uma tarta dhishooda caana lagu shuba Gada uma baahna maanta masiibo iyo digaal iyo dib uma baahno mana u dul qaadanayno sade waxa la yiraahdaa sade Ilaahay cid kale oo maanta xurmo u hayso ma ay jirto sadana waxaan ka codsanaynaa beelaha sade dal iyo dibid iyo inta taageeraysa oo wax ka qabanaysaba inay gobasha taala gobolka Gada ay ka soo qayb galaan waxaan codsanaynaa cidda nagu haysa carqaladaynta oo nagu soo xawishay dibka ka jiray raas Kaambooni oo rabta Gada inay dhibaatayso oo xasuulolida ay ka qaado oo ma dul qaadanayno oo diyaar u manihin hanaga dayso hanagala daaya dibka waxaan codsanaynaa nabad baan ku noolnahay Ilaahay baa naga dhigay dad Ilaahay nabadeeyay oo caafimaad qabo maskaxdoodana ay fiyowdahay dad kalena aan loo dhaxmari karin nin colaad nin kale uu wato inuu noo soo dhaxmaro oo dhibaato noo geystana uma dul qaadanayna wabillahi tawfiiq عاودكي بالحاود دقنا علماء أو كي دولو دقنا إنه بدون تاها سيدو أقبل إنسان إندوشي ده لقود دقالمو ما ترى هذا على رجال بدقال دول من استيكو رير قرباري نقبح أما بناك نقدشوا وترى مركا إنسان وحلا جران كرا مركا ما حنفلا يا مركا إندت كعبرار ويمادو إن عقلقو توصو إني كوان تومان دقال لقصو خراي مش اللي يقان راس كبوني إن كذا لك كان وقت الله بحيو وحسن رادين ودان شخصي وأحمد دبر هذين ودان شخصي أو خارج مركب وطن إني عرفت إنه كنت ضد على معلم والبا وإنه وحبك كبران ويران إن هذا الكلمين حس لها رنتي غير الجدو عرتها مجيان أنا هالكل لابتها أوران لهارتها لو لابتو جد بقى عليك الدجال حيل الدجال قبل ما تشوفه دجال حمر لقى صورنا جد وقت وما هيسو انت وحقال كان وشيء يا عضياشة انت سنكسو كوبيا انت ودبس رسول لابنينو waxaan saacadaha soo socda aan dib u fiirin doonaa heshiisyada leeyahay Itoobiya Xasan baa galay midkii Masar iyo arrimaha mandaqada ka socda naasi gooni ayaan u fiirin doonaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.